waata daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo waliba hotelkii qaraxii hotel Iswail fadlan haddaad ku cusubtahay xaqiiq joog media fadlan waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe saarto gambalkan afurato si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamkaba waxa soo baxay warar hordhac oo ku saabsan qaabkii ay al-shabaab u soo galeen hotel Iswail oo ka agdhow madaxtooyada Soomaaliya aagaas oo ah meel aad loo ilaaliyo oo aysan si fudud u gali karin cidna saraakiil kala duwan oo aan la hadalnay ayaa noo sheegay in dagaalamayaashii galay Iswail hotel aysan imaanin shalay galinkii dambe ama markii uu weerar ku dhacay balse ay meel hotelka u dhow ay shalay ku qaateen waqti dheer sidoo kale waxay saraakiisha noo sheegeen in laba arin ay fududeysay in al-shabaab ay ka soo gudbaan mid kamid ah kantaroolada ugu waaweyn ee ciidamada ee laga ilaaliyo fila Soomaaliya labadaas arin ayaa kala ah dhawaanahan waxa jiray fasax ay ciidamada booliska u haysteen in ay ka soo gali karaan dhanka ceelgaab si ay u maraan tirakoobka socday xarunta taliska booliska Soomaaliya ee Commanda Buluzia taas oo ku taalo ka soo horjeedka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya qodobkaas waa qodobka koowaad ee la filayay sida ay ku soo galeen fududeysay sidoo kale waxa jira fasax ay ciidanka ilaalada mas'uuliyiinta dawladda ee oo boolisku u badan u haysteen in ay fariisan karaan agagaarka Iswail iyo hotel kale oo ka agdhow maadaama aan hub la gali karin albaabka ugu horeeya ee madaxtooyada Kashmir waana sababtii keentay in hotelka darbigiisa fariistaan iyagoo iska dhigaya staff qofkii ay la socdeen oo uu ku jiro madaxtooyada wararka aan ka helno ayaa sheegay in kooxdii weerarka soo qaaday ay qaraxyada ku wateen bam gacmooyin badan isla markaana ay iska dhigeen rag wata marduufo qaad ah cabitaan shaax iyo waxyaalaha kale ee lagu qayiro waana sababta keentay in aan laga shakinin bacaha ay wataan xogta aan helno ayaa sidoo kale sheegaysa in shalay duhurkii ay ka soo gudbeen kantaroolka ceelgaabta isla markaana ay fariisteen ka soo horjeedka hotel Iswail iyagoo iska dhigaya rag qayilaya balse waxay damacsan yihiin in ay hotelka galaan markii Janice yar helaan balse waxay noo sheegeen dadkii meesha ku sugnaa in raggan darbiga hotelka koritaankiisu isu fududeeyeen kadib markii qofka kale uu gacmaha sii qabtay kadibna uu ku istaagay isagoo sidaas ku koray dhismaha hotelka waa tahay daawadayaal halkaas war kala socotaan waa xaqiiq joog media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe